walaalayaal kulankii waynu bilaabaneynaa leader sacdiyana inay maqashaan rajaynaya maasha allah sidaan inii sheegayba kulanka caawa waxay noogu ballansan walaasheen leader sacdiya iyo walaasheen sahra sahra xagga dambe barnaamijka ay nagala qayb geli doontaa laakiin inta hore waxaan siinaynaa walaasheen sacdiya insha allah walaala sacdiya soo dhawow aad baanu marka hore anigoo dhammaan ma garanaysaa dee tiimka ka qayb gelaya kulankan iyo naftaydaba matalaya waxa weeyaan waad mahadsan tahay baan ku leenahay adigoo ku jira maalmihii ugu dambeeyey oo runtii aad ma garanaysaa shaqadii tiimkaaga iyo taadiiba ay kuu taalo howlo badan ay ku yaalaan weliba ma garanaysaa hooye ah oo waqtigaagu aad u kooban yahay inaad ma garanaysaa waxa weeyaan caaw weliba ay duhur kuu tahay xilligan oo xilliyada iska biisiga ay kuu tahay inaad ma garanaysaa waqtigaagaadna soo siisay waanu kaaga mahad celinaynaa abaalna waanu kaaga haynaa ilaahayna ha kaa kisaaysiiyaan ku leenahay insha allah kulankan caawa aan kula yeelanayno waa kulan ay walaalaheena su-aalo kugu weydiin doonaan anoo su-aalaha ay qaybta qoraalka inagu soo qori doonaan kadibna anan ku weydiin doono insha allah iyo qayba aniga aan ku weydiin doono ay ka iman doonaan insha allahu tacaala bal marka ugu horeysa sacdiya waa tuma walaasheen sacdiya waa tuma halkeebay ku nooshahay goormay ganacsigan bilowday dinta lebay ku jirta sacdiya waa tuma marka ugu horeysa bal su-aasha walaal inaad nooga jawaabto ayaan aad iyo aad u jeclaan lahaa soo dhow walaalo aad baan u dhowahay managerkayga qaaliga ah maasha allah iyo liidarada meesha ku jira maasha allah kulli waa idin wada salaamayaa waxaana inoo wada rajaynayaa meesha aan taagana iyo meel ka sarraysa inaad wada gaartaan kulligiin hamigiinana aad ka dhabaysaan haddii alla idmo haddii aan ku bilaabo magacayga waxaan magacayga la dhahaa sacdiye xirsi waxaana ku magac dheerahay sacdiye online marka aad baa idiin soo dhawaynayaa waxaan ku noolahay waddanka maraykanka hooyo waxaanahay 3 ciyaala haysataa maasha allah kambanigana waxaan kusoo biiray bishii 9aad 2020 maasha allah waxay ii suurta gelisay inaan kambanigan kusoo biiro fursadan qaaligana aan ka faa'iideysto manageradeyda sare khayr allah siiyo maryan oo story joogta waxaa laga yaabaa in badan oo meesha ku jirta inay wada taqaano laakiin aysan isu kay aqoon ani iyo maryan inay iga sarreyso waan u mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa oo qayb weyn ka qaatay ilaa ay haddana maasha allah qayb weyn ka qaadanayo oo garabkiisa aan taaganahay waa managerkayga Cusmaan khayr allah siiyo dad badan uu soo wada caawiyay keligay ma ahan abaalna waan uga hayaa marka aadna horta idiin soo wada dhaweynayaa kulligiin su'aal kastoo aad qabtaan way weydiin kartaan maasha allah soo dhawaada wow maasha allah walaal aad baad u mahadsan tahay sacdiya maasha allah muddo kooban baad ku jirtaa ganacsiga filaya sanad baynay ka yar tahay maasha allah darajadaad kaga jirtaa waa tee darajada aan kaga jiro adigu 8 bilood baan ku jiraa maasha allah darajada aan kaga jirana waa darajada managerka tiimkaygina maasha allah aad buu u balaartay amigaygina aad buu u sarreeyaa maasha allah meeshaan taagana ay meel ka sarreysa inaan istaagaan rajaynayaa haddaba moodaawa forever inay ii dhadhanto aan hurdadiiba xoogaa iska ilaaway haddaba hurdadii iska ilowday oo aad shaqo badan qabanaysaa oo aad dareentay yani maalinba maalin ka dambaysa xamaasad badan baa kusii gelaysaan ayaan walaala aan u tiltimanay maasha allah tabaaraka allah aad baan kugu hambaleynayaa leader hello Sadia hello Sadia walaalo mute iska qaad sorry ma arkeen mood inaan ku jiro وعادي walaalo walaashii Sacdiya aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad noo sheegtay inaad 8 bilood aad manager ku noqotay ma 8 bilood inaad ganacsiga ku jirto
laakiin darajadan qiimaha leh managerka ee aad ku jirto iyadana imse bilood baad ku noqotay xaggayga mise waa xagga walaasheen hello sacdiya سعدية ولا لا سعدية ما يمغشها ولا لا وانكو مغلا رالي نقو مانجر كيغي مود با إيقالي هاي ساشن كويدي وحوي إمسا بلوضة يد مانجر كل نقطة مانجر وحان كو من نقضي 3 بلود ما شاء الله 3 بلود قديدا يان درجة مانجر كو بوحي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ندان ولا ليال ولا شيء 90 days سقاشن مالمود دي كل نقطة مانجر سقاشن مالين أو كليا أنا waxaan ku noqday manager-ka markaan taariikhda dib u raaco bishii labaad 2019 baan soo galay ganacsigan Forever waxaan manager noqday bishii December 2019 taas oo waxa weeyaan ahayd muddo ma garanaysa ilaa 10 bilood ah ما شاء الله تبارك الله marka walaasheen waxay ku noqotay halkii aniga ilaa 10 bilood ugu qaadatay iyadoo 3 bilood oo kaliya ay ku gaadhay manager bal waxaynu weydiin doonaa sida uu shaqeyso walaasheen iyo xilliyada ay shaqeyso iyo waxyaabihii uu suura galiyay inay ma garanaysaa wax weeyaan guulaha gaadho marka bal walaalo soo dhawow Sacdiya ka waran ganacsigaaga sida aad u shaqeyso ama sida maalintii marka aad bilaabayso ay kugu bilaabanto iyo sidii aad guulahan ku gaadhay waxoogaa naga sii walaalo guulahan horta waxaan ku gaaray haddii aan soo koobo waa hami aan ka lahaa company-gan Forever Living Product iyo dadkii guulaystay oo aan maasha Allah warbixinadooda aad u dhageystay baa igu dhaliyay inaan ma aragtay guul weyn aan isku taxaluujiyo inaan ka gaaro marka hamigayga ayaa ii suurtageliyay aan dhihi karaa guushan hadda taagana maasha Allah hamigaaga oo ahaa hami culus oo adag oo bira ayaa sababta ugu weyn inaad guulaysato ku saash laakiin bal dariiqii aad soo martay iyo qaabka aad u shaqeyso bal wax nooga waran walaalo wallahi horta markii aad ku cusub tahay company caalami ah waxyaabo badan baa kugu cuslaan kara laakiin waxyaabaha lagaga gudbi karo waxay tahay inaad meel hadaf aad leedahay go'aankaagana uu yahay inaad meel ka soo jeesato marka ani waxa ii suurtagelay waxay ahayd inaan rabo inaan manager darajada manager-ka aan noqdo hamigayga kaasoo ahaa marna waxaan dhihi jiray mar allaala markaan soo galo zoom-ka oo manager-kayga Cismaan uu hayo dadka uu ku casuumo managerada waxaan markasta aan niyada gelin jiray inaan maalmaha ka mid ah ii yeeri doono dhihi doono Sacdiya manager ku soo dhawow ما شاء الله يعني درجada manager-ka ayaa niyadaada aad iyo aad kaga guuxaysay inaad manager gaadho oo hamigaaga aad ka dhex arkaysay inaad yani ma sha Allah isbedel badan qofka manager-ka uu sameeyo ما شاء الله تبارك الله marka bal nooga waran qorshihii aad sameysay iyo qaab shaqeedkaagii koobaad processkii manager-ka way waxaan la soconaa qofku marka uu doonayo ganacsiga inaad manager noqoto inaad senior manager noqoto inaad diamond manager noqoto inaad gaariga hesho inaad dalxiiska gaadho waxaas oo dhan process bay u baahan tahay nidaam soo maro ما شاء الله marka bal bilowgaagii hore iyo habkii aad ku soo gaadhay ma waxa kuu suura galiyay macaamiil badan oo dhistay ma waxa kuu suura galiyay inaad team adag aad dhistay sidee waxyaabihii ma garanaysaa dariiqa kuu sahlay maxay ahaayeen waxa ii suurta galiyay waxa ayd hamigayga ما شاء الله marka ugu horeyso ma garan kartid inaad team adag heli doonto ma garan kartid alaabta inay kuu socon doonto laakiin hadduu hadafkaaga yahay inaad guul gaarto waad gaaraysaa marka ani waxa igu dhaliyay waxay ahayd inaan dadkii aan aqaanay waxaan oo dhan waxaan yani ka qorto waxay ahayd zoom-ka uu qaban jiray Cismaan oo ahaa dadkaaga 3 qayb u qaybi koowaad labaad saddexaad sidii baan sameeyay marka waxaan liis baan samaystay dadka igu dhow ayaan qortay dadka kuwa wax iga maqli kara marka ugu horeyso iyo kuwa aan ma aragtay xoogaa yar aan hadaan soo jiida aan ma aragtaa wax iga fahmi karo iyo kuwa iga fog kuwa intaba waa wada qortay
marka waxa ii suurta gashay in ma aragtay dadka ii dhawaa xataa haddii igu diiday inay kambaniga kasoo qayb galaan in ma aragtay ay iga ogolaaday in alaabta iga iibsadaan marka bishii igu horeysay sagaalaad 15keeda 2020 15 beri gudahooda waxaan ku iibiyey 8 cc alaab ah imisaad ku iibisay imisa cc 8 cc iyo wax almost 9 cc baan gaday bishii ugu horeysay anoo waliba 15keeda soo galay marka waxa ii suurta gashay in alaabta horta ii gadantay alaabtu waa aad iigu gadan jirtay ma sha Allah ilaa haddana waxaan sameeyaa anigoo manager ah ayaan waxaan sameeyaa madow iyo cadaan iyo Soomaali wixii allaala wixii meesha aan deganahay ila deganoo dariskeyga ah ayaa waxaan sameeyaa maalin waxaan qaadaa muxuu ahaa Colgate-ka mar waxaan qaadaa looshinada qayb kamid ah marka waxaan ku ritaa boorseer baan wataa kulligood qaybtood waxaan ku garaacay albaabka qayb waan sii balansadaa qayb guriga igu imaadaan anigoo manager haddana alaabta iibiya mar kasta alaabta waan iibiyaa xataa hada iimaan waan qaadaa alaabta waan la soo wareegaa waan ku garaacay albaabka waxaan dhahaa koleer waa iibsanaysaan alaabta alaab lahuba weeyaan iga iibsada marka maasha Allah alaabta horta ilaa hadda ma joojin hadafka alaabta aan ka leeyahay inaan iibiyo teamka soo haray teamka ben hadaan sheegaynin darajada waxaan ku gaaray waxay ahayd YouTube aanan lahayn ayaan commentigiisa dhigi jiray haddii aad shaqo u baahantahay adoo gurigaaga jooga fadlan linkigan soo raac qofka markuu ii soo galo linkeyga waxaan sameyn jiray inaan u faahfaahiyo managerada iga sareysa maasha Allah way caawin jirtay intaan supervisorka soo gaarayo marka aad baan maasha Allah u dadaali jiray waxaa jirta sometimes inaan niyad jab qaado because waxaa laga yaabaa qof inaan maanta dhan waqti geliyey ana guri iga dayacan yahay ana wax walba u baahan howlo badan qabsan la inaan qofkaas jundi badan geliyey marka qofkii inuu dhaho waxaan wax soconaya ma ahana iga daa marka sometimes horta niyad jab waad qaadaysaa laakiin maxaa kaga gudbaysaa inaad la kaashato dadka kaa sareeya oo soo jabay oo soo arkay because darajo kasta oo la gaaro waxbaa jira yani fudaad laguma gaaro yani haddii la dhaho haddaan dhaho hadda manager baan noqday laakiin waxaan ku gaaray wax caqabada lama kulmin taa been baan ku sheegay marka qofka marka waxaa la wareystaa dadka kaa sareeya anu marka maasha Allah intaan professor noqonayay ilaa managerkay kula dhawaad waxa aad ila talin jirtay waxay ahayd manageraddeedii sare khayr Allah siiyo Maryan marmar waxaa jiri jirtay xataa inaan wacoon dhaho maanta niyad uma bahayo forever because waan ku daalay am tired waxa laga yaabaa marka maalintaas oo kale aad telefoonka igu soo celcelin jirtay Saacadiyoy no waxa ha sameeynin way ku suurtageli doontaa keep going marka keep going iyo hamigi aan lahaa ayaan horta heerkan hadda taagana ku soo gaaray iyo managerkayga Cusmaan oo markasta ka qayb geli jiray warbixinada uu bixiyo oo trainingkiga ah iyo groupka oo mar walba ka warhayo marka waqtigayga badan waxaan gelin jiray forever inaan ma aragtay iyo anoo ma aragtay linkiyada aad meelaha u dhigdhiga ilmaha markaan seexiyo kala habeenkii ma seexan jirin ilaa 12 o'clock ayaa schedule-kayga ahaa inaan 4 saacadood ku dhawaad forever ka dhex shaqeeyo ama qof aan waco aan warbixin siiyo ama markii dambe laakiin waxaan noqday stronger waan ku adkaaday because mar waxaa jiri jiray markaan qofka aan warbixin siinay aan gariiri jiray because waxa waan ku cusbaa laakiin hadda si degan oo maasha Allah ayaan u bixiyaa warbixinada waxaan ku noqday yani waxaan dhigi karaa stronger women ayaan ku noqday because waxaan markaad wax badan ku soo jirto waxaad noqonaysaa qof adag wax walba ku soo mari kara qof warbixinta intuu ka qaato aan dib kugu soo noqonin marka maasha Allah horta aad baa idinku mahadcelinay waqtigiina qaaliga ah laakiin waxaad samaysataan schedule samaysta aniga schedule-kayga haddaan ka waramo subaxdii waxaan soo kacaa 4 o'clock cuntada ilmaha u diyaarsadaa ilaa wax walba waan isku diyaariyaa ilaa maaragtay 6 meesha lagu gaaro ilaa 8 waxaan ku dhex jiraa 2 saacadood forever aan ka shaqeeyaa waqtigeeda inta badan forever aan siiyaa laakiin gurigana haddana ma daayo oo ilmo yar baan haystaayo aan ka dhex shaqeysto marka tiimamkayga labtirkooda xataa waqti waan siiyaa maasha Allah
marka I hope inaad dadaashaan waxaasoo dhan waxaa ka akib ah oo mas'uul ka ah inaad hadaf leedahay haddaad hadaf leedahay ما شاء الله hadaf leedahay waad gaaraysaa meesha rabto midda kale idinku daray waxay tahay dadka ha ka niyad jabina dadka aad rabtaa inaad ku soo dartaan forever ha ka niyad jabina waxaa jira dad active ah oo wallahi haddii uu tiimkiina ka mid noqdo aad si fudud meel kasta ku gaari kartaa tusaaleaan aniga haddaan soo qaato xaliimo maasha allah hal maalin baan qoray intaas oo qofood ayay qortay ilaahay ha u siyaadiyo maasha allah waa darajada aan taagana qofka ma aragta mas'uulka ka ahayd bay ahayd marka hal qof aad qorto ayaa waxa laga yaabaa inuu sida diyaaradii ku duuliyo marka ha ka fariisanina dadka inaad maalin kasta niyad jab ha isku ridina maalin kasta adiga dad waxaa siisaa warbixin isku taxaluuji inaad meel kastoo taagan tahay hadda aniga suuqa haddaan tago oon hal qof Soomaali soo arka forever aan uga sheekeeyaa ما شاء الله ما شاء الله aad baa idin soo dhaweynaya qofkii idin duulin lahaa weli waa dhiman yahay haddii aadan sida diyaaradda duulin laakiin kaasay ku helaysaa waxa ku helaysaa samir iyo dadaal halka waxa ka fahanay muhiimadda marnaba inaad dad qorto ama dad inaad casuuntaha joojin waad helaysaa qofkii yani diamondka ahaa wanaagsanaa waxa weeyaan isagana geed si fiican u tarmay intaad beerayso oo geedo badan oo tarmaya aad beerayso u dulqaado ma garanaysaa waxa ka horeeya xagaa baa ka horeeya jiilaal baa ka horeeya yani waxa weeyaan maalmuhu isku wada mid maaha waayu isku wada mid maaha marka haddaad ku jirto xilli yar adag aad ku jirto xilliga barwaaqada iyo nimcadu way kuu soo socdaane u yara samir ayay walaasheen leedahay waana murti weyn oo cajaayib runtii oo aad iyo aad u muhiima anigana ay deeqday adigana ku deeqday walaal waxaad nooga warantay time table-kaaga oo ilaa 4 subaxnimo ka soo bilaamaya marka saacado go'an may jiraan oo aad shaqayso subaxii ilaa iyo waxa weeyaan dhamaadkii maalintaas maxay kugu dhamaataa wallahi waxay igu dhamaataa xiliyadan ilmaha cuntada siisanayo iyo banaanka hataan ka soo shaqaysanayo mooyaane inta kale telefoonkayga forever uma ka dhex shaqeeyaa forever mar allaale markii aan fiiriyo because dad baa isoo wacayo maasha allah tiimkayga wuu balaartay ilaa 8 wadan ka badan buu hadda marayaa heerka wuxuu ku marayaan waxa weeyaan aan dhihi karaa waa kalsoonidii markii dambana isoo gashay adeegii aan ka qaaday iyo waxa weeyaan hamigii aan lahaa ani hami baan lahaa meeshan waxaan u soo galay waxay ahayd hami aan lahaa kow markaan forever soo galay dhibaato ani i haysata hadda ka horna waan ka sheekeeyay gabar yar oo hadda ii joogta Allah ii daayay oo xanuunsan oo iska barakaysan banaankii shaqadii baa ay dhibi jirtay markaan banaan ka soo shaqeeyadana dhakhtar baan siifiyaa banaan ka soo shaqeeyaa dhakhtar ba iga gashaa markaan arkay adoo gurigaaga jooga ka shaqeysan kartaa taasa marka igu dhajisay marka adiga i dhageysanay waxa isweydiisaa sababta kugu kaliftay inaad forever ku soo biirto hadduu ahaa sababta kugu kaliftay heblaaya saaxiibaday oo gashay gal waxba kama keenaysa laakiin haddii jirto in aqabado ee markaa ku haysteen sidoo kale oo ani waxa banaanka igu adkay inaan ka soo shaqeysto marka shaqadan waan ku dhagay wax walba isoo mar waxaan fiilin jiray inaan maalin u guuleysan doono maalin inaan istaagi doono meesha uu Cismaan taagan yahay maalin la igu yeeri jiro manageradin la igu yeeri doono inaan managerada mana iga soo hoos bixi doonaan wixii oo dhan way ii suurtagalay maasha allah waxaan rajeynayaa in maaragtay Cismaan Allah barakeeyo khayrna Allah si meeshuu taagan yahay iyo meel ka sareysa rajeynaya idinkuna waa idin rajeynaya markasta waxaad ku dadaashaan inaad isweydiisaan maxaad forever kugu kalif inaad soo gasho kulliba waa soo wada gashay maasha allah laakiin hadday ku haysato in dhibaato xagga lacag la'aanta ah shaqo la'aan maxay ahayd waxyaabo badan oo kugu adag qof bini aadan aad tahay hadday jiraan u adkayso shaqadaada inaad dardar gelisid mooyaane ha isku taxaluuji inaad hoos u rido mar alaala markaad ka seexato forever bustay ku saaraysaa wallahi inaana been idin sheegin hal bil haddaadan active ka buuxinin ood seexato oodan hal alaaba aadan iibinin bisha dama way kugu adkaani doontaa mar haddii faraha ka baxdana say oga baxda way marka haddii aad imaqlayso hamina aad ka leedahay forever ha ka niyad jabin hore u soco dadka guulaystayna dabagal حتى أنا سعدية وإصاوي كرتا سؤال شاقة ويدين كرتا عثمان ويدي ليدرا دي آد سووا في عنتي ويدي
haniyad jabin anigu waxaan idinkula talinayaa dadaalka aad samayso forever waad helaysaa aad baa idin salaamaya waaw aad baad u mahadsantahay walaala sacdiya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaggii soo gelitaankaaga markaad shirkadda soo gelaysay on dib u yar laabano waxa caqabadood la kulantay ma jiraan xagga faamiliga oo kale dadkii asxaabtii ku dhadhaweyd yani caqabaad challenge ka soo wajahay ma jiraan soo gelitaankaagii horeba wallahi way jiraan dhowr baa iga soo gashay dhowr haddaa mid soo qaato iyo labo walaashay gabar ingiriiska joogto hooyaday aabahay dhalayna Socdi la dhaho baa waxay wacda reerkayga oo dhan markaan kambanigi soo galay waxaan damcay in ayadana ku soo daro reerkii waa waxay tiri kambani waa dhibay kambani waa lacagta ka guranayo ilaa hooyada iyo walaalahay isoo waceen way ugu dhahay hooyo waxaan iska daa waxaan waa la isku dhacaa marka haddana caqabad kale waa ay heshay oo caqabada odagaygo kaleete caqabada badan baan kala kulmay oo ah in ma aragtay uu yiraahdo forever iyo aniga xataa waa isoo martay laakiin waxaan fiiriyay waxay ahayd anoo gurigayga joog inaan shaqaysan karo ilmahayga yarkoo banaanka yani banaanka iyo daycareka aan geenay iga xanuunsanayo taas ayaa waxay iga weynaatay wax walbo isoo mara xataa waxa isoo martay saaxiibo aad isugu fiicannahay inay igu dhaheen nawad waalan tahay de haddana iyaga waxay igu dhahaan markaan jeegagayga u diro bonuski aan sameeyey oon meel kasta caalamka ka sameeyey aan u diro oon dhaho Soomaaliya dadka lacag bay u diraan laakiin aniga ka waran intaasoo kunood ay iga soo gashay wallahi beenku ma sheegin iyaga hadda waxay dhahaan see ku gaartay maasha Allah tabarakallah marka intaada guulaysanna waxa lagu dhahayaa ma gaari kartid marka guulaysto waxa lagu weydiinaa sidee ku guulaysto marka keep going insha Allah ta'ala maasha Allah marka hore turanturooyin baa lagu dhigayaa marka dambena waxa weeyaan waxa lagu su'aalayaa sidee baad ma garanaysaa wax weey halka ku gaadhay ajaayib resultigaaga ayaa amazing noqonaysa dad badan ka yaabinaysa aad iyo aad ayaan walaalo kaaga mahad celinayaa walaasha qaaliga ah Sacdiya waxaan rabaa inaan su'aasha ugu dambaysa ku weydiiyo oo ah guulii waaweynaayad gaadhay habkaad u shaqayso waxyaabo badan hoga tusaaleyn badan inaanaanu marnaba isdhiimin caqabaad inay jiraan laakiin caqabaadkaasi loo dulqaato oo adkaysi loo yeesho waxyaabo badan ayaan walaalo kulankaagan ka faa'iidnay waxaan doonayaa bal insha Allah hadda inaad noo sheegto manager baad noqotay tareenkaagu halkeebuu ku wajahan yahay ma halkeeba ku xigta halkeed u socotaa halkee wadigii de noo sheegay inaad ma garanaysaa shirkadda markaa soo gashay adigu aad calaamadaysatay manager alxamdulillah ilaahay waa ku soo gaarsiiyay managerkii waliba muddo yar gaaban gudeedo 3 bilood ayaad ku soo gaadhay laakiin halkeebuu tareenku uga dhaqaaqaya halkan halkeebaad uga socotaa soo dhaw walaalo aad baan idinku mahad celinayaa 100% maasha Allah tareenkayga hadda wuxuu taagan yahay ما شاء الله وحوي إن آن already وأيد السين لكن إن آن بسوا تيمم كيجو هراء تيمم الصبح إن آن بسوا تيمم أذك وأذك ومانج رب بدن له هدي إلى هيدا كتيجو التارجت كيجنا وحو كوه هجهنيا وحواي هذا جرو حندقنا رنتي وكراء لكن إن شاء الله سنة كعصب هدي إلى هيدا كتيجو عافيمات كان إلهي يقول سمو in aan guri aan leeyahay aan degi doono hadii Allah idin inaan guri iibsado wiilkayga yarka ah oo 12 sano hadda jira in ka badan ha jiro marka soo sheego waxaan dhahaa hooyo guri inaan iibsanaa rabnaa don't worry inaan kan ka baxno marka hamigayga ugu weyn waxa weey inaan tiimamkana ii adkaadaan because tiimkaaga hadduu sanaadkan hadafkaaga ma gaaraysid iyo inaan gurigan aan ka bixi doono oo aan iibsan doono guri hadii Allah idin marka nolosheeda inay wax yar isbedeli doontaan rajeynaya waynu ku socotaa hadii Allah idin ma sha Allah tabarakallah inaad shaqa aad forever living ka bilowday oo challenge badan lahayd aad maanta ku hamiyeyso guri inaad Mareykanka kaga iibsato macna inta leeg bay ku leedahay wallahi aad bay igu weyn tahay sababtoo waan soo arkay forever horta qof dhihi karo ma jirto lacag ma laha qof dhihi kara wuu jiraa way igu yara adkaatay ha laakiin qof dhihi kara ma jirto forever lacag ma laha qof walba uu ogyahay forever inay lacag leedahay aniga marka maxaa ii diiday jeegaga waaweyn oo dadka qaadanaya German check maxaa ii diiday anaa isweydiiyay why maxaa ii diiday Saacadiya maxaa ku diiday German check ina qaadato maxaa ku diiday heerar sare ina gaarto maxaa ku diiday manager ina soo saarto
maxaa kuu diiday inaad kirada ka baxdo marka waxyaabaha maskaxda hadda kusoo noqdo waxaasaa ka mid ah hadafka aan leeyahayna waxaa weeye insha allahu tacaala in aan shaqadii aan ku bilaabay $448 haddana ii maraysa maasha allah inaan intaas oo kun oo dollar aan ka qaato intaas oo wadan maasha allah Soomaaliya ugu dambaysa wallahi bee inaan sheegaynin $1 baa iga soo gashay Soomaaliya reerkaygii oo shalay dhihi jiray waa lagu dhacayaa ayaa waxay dhahaan see hooy lacagtan ku sameysay waa la weydiiyay hooyada baa kamid dadka weydiiyay marka maasha allah aniga Soomaaliya dadka lacag bay u diri jireen bishii koowaad wixii ka dambeysay bishii 12aad wixii ka dambeysay Soomaaliya wallahi lacag inaan u diray ayadaa lacag aan ka soo qaadan ayadaa ii soo marka heerarka aan gaaray ayaa ii suurtagelay inaan hami ka sarreysii gaaro because dhargaa waalan dhadhanshaana ka daran bay Soomaalidu dhahdo maasha allah believing walaalayaal hadalka walaasha waxaynu ka dareemaynaa waxa la yiraahdo aaminitaanka walaashan waxay aaminsan tahay waxay aamintay inay manager noqon karto iyadoo assistant supervisor waanay noqotay maanta waxay aaminsan tahay oo halkan ka sheegaysaa inay gurigeyga ugu horeeyay ay ka iibsan doonto dhaqaale ka soo galay ganacsigii Foreifo caqabad ay kala kulantay waliba dad badan markay soo galeysay waliba ay ka iibsanayso gurigaasi Mareykan ma garanaysaa gurigaasi qiimaha uu leeyahay qiimahiisu intuu noqonayo waa lacag ilaa $100,000 weeyaan walaalayaal Mareykan aad guriga ka iibsato oo dhaqaale aad u badan weeyaan maanta taasi aaminsan tahay I hope waxaan rajeynayaa walaasheen in mustaqbalkeegu sida ay aaminsan tahay inta dambana ugu dhamaado laakiin halka waxaan ka fahmayaa oo aniga iga baxay qofka bilaadanka waa intuu aamino haddaad aaminto waxa aad qabanayso markaad aaminto inaad wax ka samayn karto markaa baad meel ka gaari kartaa markaad believing haddii aad aaminto inaad guuleysanayso wax ku hor joogsanaya haba yaraatee ma jirto ganacsigeennana waxa uu ganacsiyada kale kaga duwan yahay ma jirto qofka limit ama turaantaro ama wax hadidaya oo qofkan inuu ma garanaysa heerka gaadho ka hor joogsanaya ma jiro maasha allah taas waxa xaqiiqo inooga ah dhammaan walaalaha aynu tusaalaha inoo wadaaba inooga marqaatiya marka waxa weeyaan maasha allah walaashana aad iyo aad ugu mahad celino aad bay u mahadsan tahay haddii aad su'aalahaysaan qoraalkiinaan eegi insha allah aad iyo aad baad u mahadsantahay walaala Sacdiya runtii waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa ma garanaysaa juudigaaga dadaalkaaga faraha badan leh iyo ka goonaashahaaga ay ka go'an tahay inaad aad ganacsigan guul weyn ka gaadho qodobka kale aniga aan nood garaystay ee aan meel ku qortay waxa weeyaan forever living inaan iskaga jirin markaad soo galaysan inaan iska soo galin markaad ku jirtana inaan iskaga jirin you have to be in a reason waa inaad sabab ugu jirto walaasheen sabab ayay ugu jirtaa ganacsigani sababtiina maasha allah mid kamida way rumaysayo maanta de waxa weeyaan shaqooyinkii banaanka way ka maarantay oo gurigeeda ku dhex shaqaysataa inanteedii yareed bala joogtaa because marka hore waxay awoodi weyday inanteeda yara xanuunsan awgeed inay banaanka ka soo shaqayso maasha allah marka maxay raadisay bedel bay raadisay ay gurigeeda ku dhex shaqaysan karto iyadoo inantii yareedna aanay ka dayacmin oo carruurtii ka dayacmin maani sababtii ay u soo gashay walaalayaal rumayn maasha allah way rumaysay xaqiiqatan reasonka kale waxa weeyaan ee ay maanta ugu sii jirto waliba waa inay yani dreamkeeda ka rumayso oo ay guriga ka hesho oo ay isbedel ballaaran oo intan iminka inoo muuqata in ka sii badan ay samayso maasha allah hambaliyo hal mar hambaliyaan usoo qorno guul baynu rajaynaynaa walaasheen maasha allah tabaaraka allah waaya su'aalo badan ma haysaan sidaan filayo maasha allah ifraax waxay tiri waan cusubahay maxaa talaysiin lahayd Sacdiya walaal gabadh walaasheena oo ifraax leeyahay ayaa waxay ku tiri waa qof cusub baan ahay caawana inagala qayb qaatay taladaadii siin lahayd maxay tahay maasha allah waan soo dhaweynaya walaashay macaan gabadha walaashay waxay joogtaa Djibouti maxaad siin lahayd taladaad siin lahayd maxay tahay aad baan horta kuu soo dhaweynaya walaalle waxaana kuu rajeynayaa meeshaan taaganahay meel ka sarreysa ilaahay idinkiisa talada aan ku siinaya waxay tahay horta ha isdhiibin weligaa intaa forever ku jirto ha isdhiibin wax kastoo aad la kulanto ha isdhiibin mar baa laga yaabaa in alaabta kuu gadmi weyso mar baa laga yaabaa in maaragtay tiimka kugu adkaado laakiin ha isdhiibin dadka intaas oo $1,000 intaas oo $100,000 ka samaynayo maalin bay soo galeen sidaadoo kale u soo galeen marka ha isdhiibin caqabada kastoo kula kulmana hadday xag family noqoto xaggee had friend noqoto ha u joojinin keep going hore u soco marka taladaan ku siinaya waxay tahay hore u soco
waqti badanna geli forever haddii aad waqtiga aad gelisaad ka heli doontaa forever waxa aad geliso ayaad ka heli doontaa waxaad samaysaa talada kale aan ku siinay waxay tahay markii aad baxdo banaanka aad aado asxaab haddaad aragto isku taxaluuji inaad forever u bandhigto isku taxaluuji inta kuu dhadhow inaad u sheegto forever la share garayso because share garaynta forever aad share garayso waxaad kala kulmi kartaa natiijo fiican hal qofaa laga yaabaa ood ka hesho meesha in ma aragtay sida diyaaradii uu kuu duuliyo marka waxaan ku dhihi lahaa hore u soco keep going idinka inta meesha ku jirto waxaan leeyahay keep going hays dhiibina weligii maasha allah talaadii aad u qurux badan bay siisay walaasheen aniguna waxaan ugu dari lahaa walaasha cusub ee ganacsigeena ku cusub walaal waxa weeyaan sida walaasheen baa ay sheegtay Saacdiya weeyaan ganacsigan waa ganacsi ballaaran waa ganacsi wax kasta marka la qabanayo oo wanaagsan oo weyn caqabadkiisu way weeyeen waxa weeyaan yani wax kasta oo dheeftiisu badan tahay dhibtiisuna way badan tahay okay waxa doonaysaa inaad chairman bonus inaad guri Mareykan ka iibsato ma filaysaa guri Mareykan inaad ka iibsan karto si fudud shaqo kasta maanta shaqada maanta ku siin karto inaad guri Mareykan ka iibsato bal ii sheega eed qaban karto ii sheega macallin inaad noqotaa guri aad Mareykan ka iibsan kartaa waxaad kaga iibsan kartaa guri Mareykan inaad dhakhtar tahay waxaad Mareykan kaga iibsan kartaa inaad siyaasi tahay oo aad dhaqaale aad ku samayso siyaasad maxaad kaga iibsan kartaa ma inaad beer falataad kaga iibsan kartaa يعني waxa weeyaan ilaahay wuxuu ku barakeenayo ee ku wanaajinayo waa sideeda laakiin ganacsigani halka aad gaari karta xad malaba lagu yiri malaayiin dollar baad samayn kartaa mar haddaad malaayiin dollar samayn karto ogowde waxa weeyaan malaayiin dollar na samayso waana shaqo u qalantaad qabato waqti kastood gelisana ganacsigani waxaad ka heli doontaa dheef wanaagsan iyo wax u qalmayaad ka helaysaa marka insha Allah ta'ala waxaas oo dhan way jiraan laakiin markaad cusub tahay ee tahay qof cusub waxa laga doonayaa marka ugu horeysana shirkadda si fiican u fahansan tahay qaaciido iyo iimaan inaad leedahay yani iimaanku waxa weeyaan ganacsigeena inaad ku iimaan qabto oo aad ma garanaysaa alxamdulillah ku tahay ayaa muhiim ah oo ku qanacsan tahay markaad soo galeysana inaad fahansan tahay ma garanaysaa dhammaan systemkaad raacayso oo dhan ayaa muhiim ah laakiin haddaad dalaq u soo tiraado dibteeda leedahay waa inaad fahanto forever waa maxay tahay forever productigeega inaad fahanto qaabka looga shaqaysanayo darajooyinka shirkadu sida ay isku bedelayaan waxaasoo dhan waa inaad fahansan tahay kadib intaas markaad fahanto adigoo wixii fahansan haddii aad businesskii aad soo gasho sababna aad u soo gelayso oonad lahayn heblaayaa gashay Saacdiyaba guri bay ka iibsanaysaa iska gal aanay ahayn laakiin adigu aad haysato sabab gaara you should have waa inaad haysato wax ku drive garaynaya oo ku kaxaynaya oo haddaad maanta ma garanaysaa hudud kula fogaato kule no shaqa ku taala hadafa ku yaala marka hurdada iska yare wax qabso naftaada wax ku kaxaynaya ku dhiirigelinaya waa inaad haysato ma garanaysaa waxaas waa maxay marka isweydii waa maxay maanta waxa forever يعني kugu hayn kara ma ku drive garayn kara businesskan ma garanaysaa waxa weeyaan meel fiican ku gaarsiin kara waxa doonaysaa inaad caruurtaada mustaqbal u samayso waxaad doonaysaa inaad xorriyad dhaqaale aad hesho waxaad doonaysaa inaad yani muxuu yahay ma inaad guri iibsato ma inaad waalidkaaga xajka geyso ma inaad dhaqaale aad reer ku samaysato guursato inaad yeelato waa reason maanta hadaad doonayso tusaale ahaan dhaqaale aan reer ku sameeyo guri islaamiyeed aan kusoo kordhiyo haddaan doonayo inaan forever ka sameeyo waan ka samayn karaa marka maxay noqon doontaa reason dhabo igu hayso shirkadii bay noqonaysaa oo leeyahay maasha Allah waxa weeyaan hadaf baad leedahay hadafkaaga sidoo xaqiijiso waa inaad ma garanaysaa caqabad kasta u dulqaadato marka qof cusub hadaad tahay waa inaad sabab sax ah aad haysato sida walaashin noo sheegtay qorshe iyo nidaamna aad dejisato qofka yani wakiil baad leedahay ama business mentor la yiraahdo oo yani ganacsigan kaaga wakiila oo ganacsigan ku caawinaya alxamdulillah ganacsi maanta laga caawinayo oo ganacsigeena aan haynin ma jiro يعني waxaan ka wada nidaamkiina ganacsigan ku shaqeynaya ku ogol in lagu garab istaago lagu caawiyo oo talo lagu siiyo ku ogol laakiin haddaad maanta meherad furan lahayd de meheradaas adiga uun baa ma garanaysaa yani waxa weeyaan wax adiga ku gaar noqon lahayd oo cidna tala kama hesheen ama jarbay kala dhici lahayd ama de ilaahay baa ku barakeyn lahaa laakiin ganacsigani Saacdiya maanta guuleeyga ugu weyn noo sheegto wax kamid ahayd
يعني إن أنا كريد وحنا أنا سمين لكن وحنا الله سوق قبتي أهيد ما كوال ولا قبنا يا الحمد لله عبسين ما جرتو هرو سوق قرشنا دجسو لنا كاشقف ولا الكايا أي وحوي وربحنتها تكو وضع إن شاء الله هذا عصبت هاي أبن كوان بلينا ما شاء الله تبارك الله